xisbiga mucaaradka ah ee ucid ayaa maanta ka warbixiyay kulan dhawaan ku dhexmaray xisbiga ucid iyo dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee Sonsaf ee Somaliland magaalada Hargeysa sidoo faahfaahinta warkan inuu eegayo wariyaheena Cabdifataax Xareed iyadoo ay dhawaan u nahayd kadib markii uu xisbiga mucaaradka ucid uu soo saaray war-saxaafadeed uu ku qaadacayo dalada jilayaasha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf isla markaasina uu ku sheegay inuu kalsoonidii kala noqday ayaa waxa uu maanta magaalada Hargeysa kulan ku dhexmaray hoggaanka dalada Sonsaf iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sarsareeyay xisbiga mucaaradka ucid waxaana kulankani uu ahaa mid laga wada hadlayay arrimo khuseeya doorashada madaxtooyada Somaliland ee kaabiga inagu soo haysa waxaana kulankaasi ka soo baxay qodobo dhowr ah qodobadii ka soo shirkaasi iyo waliba ujeedada uu daarana kulankan ayaa waxa telefishinka kalsan uga warbixiyay xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga mucaaradka ucid Kaptanka Ibrahim Salaf Kaptanka waxaana uu sidoo kale xogaya Kaptanka uu carabka ku dhuftay inay wali ka xisbi ahaan ay halkii ka taagan yihiin qaadacaadii ay qaadaceen dalada jilayaasha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf waxaana hadaladiisii kamid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد maanta halkan waxaan isugu nimishir qolada Sonsaf oo kaga wada hadlaynay qaabkii doorashada loo faysgareyn lahaa muraaqabiina ku dirsan lahaayeen marka saddex qodob un ba horta ugu muhiimsan oo maanta halkan ka soo baxay in haddaanu nahay xisbiga ucid waxa ay naga aqbaleen in saddexda xisbi qaran xisbi waliba ku soo darsado gudida ka howlgali doonta arrimaha doorashooyinka Sonsaf ay wado saddexda xisbi waliba laba qof oo task force uu ku darsado sida saddexda xisbi ay task force team ugu leeyihiin commissionka oo kale imika bilmeed loo kale commissionka waxa jira task force ka kooban saddexda xisbi ama laba qof iyo daneeyayaasha kale wasaaradda arrimaha gudaha kamid tahay marka waxaan isla garanay qodobka koobaad in ay laba qof xisbi walba ugu daraan oo task force taas waa mid waxa kale oo aynu isla garanay oo ay naga qaateen talo iyo tusaaleyn ku saabsan qaabka hawsha loo gali doono qodobka saddexaad ugu muhiimsanina waxa weeye in aanu ku ballanno oo ku heshiinay inaanu heshiis wada saxan doono markaanu isla afkarano barnaamijyada qaabka loo galiyo hawsha inaanu heshiis kama dambaysa wada saxan doono haddaanu nahay xisbiga ucid iyo Sonsaf aadna waan ugu faraxsanahay inaanu noqono xisbigii koobaad ee arinta maanta ay uga yeedheen kala hadlay annagoo si transparent oo wada hadlay iscalool xaadanay mid iyadoo halkii oo tii markii hore maalintii hore gudbiyay aanu diidnay wali ma aan ogolaanta uu diidnay laakiin satani waa qaab sidii hore ka duwan ayaanu imika u wada dhilgareynaynaa sidaan idin sheegay inaan loo xisbiyadu laba qof ku yeeshaan in aanu heshiis guud kama dambaysa kala saxaxno iyo inaanu de wax ka bedeliyo wax ku dar aanu ku sameeyno barnaamijka oo aan isla qaadanayadana marka xisbiyada kalena iyagana way la kulmi doonaan waa biriya noqota ama saacada ma noqotay labada xisbiya kalena waa ay la kulmayaan iyagana saasoo kale ayay soo arki doonaan de wixii wax wanaajinay waa soo dhaweynayna marka xogaya waxa tiri wali go'aankayga hore waad qaadacdeen guddigan dalada Sonsaf marka say suurtagal u tahay idinka daladii Sonsaf qaadacay in haddana maanta kulan la qaataan marka hore horta labaan ku kala saaro mid waxa weeye barnaamijkii hore ay markii hore shaaciyeen iyadoo aan anaga waxba laga weydiin xisbiyada ay Sonsaf ay shaacisay ayaanu hor istaagnay barnaamijka laakiin dalada Sonsaf ahaan umaanaan joojin wada shaqaynteeda mar rabiga ma aan qaadicin laakiin barnaamijkii ay wadeen hore ayaanu hor istaagnay taasina waxay dhalisay inaanu maanta isku nimaadno oo ay noqoto barnaamijkii inaanu ansixino iyo inaanu diidno ansixinteedina saddex qodob ugu muhiimsan maanta halkan waxa ka soo baxay inaanu laba qof ku darsano xisbi waliba gudida arinta ka shaqayn doonta iyo in aanu wax ka bedel iyo wax dib u eegis ku sameeyno hawlaha ku saabsan qodobada hawsha lagu gali doono iyo inaanu heshiis kama dambaysa la saxaxano oo aanu ogolaano si ku sii deeyno sidoo kalena xogaya Kaptanka waxa uu jawaab ka bixiyay hadallo ka soo yeeray xogayaha golaha dhexe xisbiga muxaafadka ee kulmiye Jaamac Ismaaciil Shabeel oo ku saabsan murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid ee dhawaan lagu dhawaaqay iyo waliba salaadiin ka soo kala jeeda beelaha koonfurta Hargeysa iyo galbeedka magaalada Burco oo socdaal ku jooga magaalada Boorama waxaana hadaladiisa kamid ahaa arintaas waa arin qaldan waxaan leeyahay waa hadal aan u meeldiin Jaamac Shabeel inkastoo aanu aanan dhageysan oo dhagaygu maqal haddana sidaa sheegaysa hadii uu yiri waan iska hadlay weey waayo isku reer iyo isku qabiil toona maaha iyo isku gobol toona musharaxa mar hadii aanay isku gobol iyo isku qabiil toona ahayn waxba kama sheegi karo ninkan waa nin saameyn ku leh gobolkiisa waa nin dhalinyaro waa nin aqoon yahana waxa weey nin aanu